jira xaalado adag baa jira saaka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobollada bariga ka soo baxaysay qayladhaan xooggan oo ku aadan abaaraha ba'an ee halakeeyey dadkeennii iyo deegaankeenni waxaa la yaab leh dhacdooyin ugub ah oo looma fadhiyaan ah iyo sida ay madaxdeennii gobollada bariga ka soo jeeday haddii ay noqon lahayd ganacsatada madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta ay uga dhoy la'yihiin ama ay uga war la'yihiin way og yihiina dee ay isu diitiinayaan ee aanay dan uga lahayn xaaladda ka jirta gobollada bariga ee jamhuuriyadda somalilan laga soo bilaabo ilaa iyo saaxil oo u galbeedaysa ilaa iyo oodweyne ilaa iyo hawd sare inta soono xuduudeedka somalilan ilaa iyo ceergaabo intaas gobollada bariga waxa ay ku fadhiyaan 80% dhulka somalilan waxaa la yaab leh matalayaashii siyaasadda ugu jiray iyo madax dhaqameedkoodii iyo ganacsatadoodii inay ilaa alaankaa ay isdiidsiinayaan oo aanay oggolayn inay ka jawaabaan ama aanay dan ka lahayn xaaladaha iyo qayladhaanta isa soo taraysa ee ka jirta deegaamada kii ka yimi sanaag halka ugu dambaysa waxa ay kor u dhaafeen gobollada Shabeelle ee dawlad deegaanka Soomaalida masaafada inta leeg ee 1000 iyo dheeraadka kilomitir waxa dadku ay dalandoolka inta leeg u tareen waxa weeyaan waa abaaro iyo xaalado jira surimada melmelan bay dadku xoolahoodii ay iniba ku hadhaysa kablan way luulayaan kablan way laalaadinayaan dadkii reemiga dhacdooyinka la yaab kale waxa kamid ah xildhibaanadii aynu dooranay ee golayaasha qaranka inoogu jiray waa taa la leeyahay dee qaarna waxay smugglers u yihiin oo ay suuqyada madow ku iibiyaan baasaboorada dalalka kale waa ma Jeffries Epstein ba qaarna waa kuwa la dhacaya protocol xumada halka wakiilada albaabadiisii la dhacaya waxaana isku dilayaan ee waxa soo dhanay u dhacaysa waxa weeye waa dana shakhsi oo iyaga ka dhaxeeya iyo guddi hoosaado iyo gudiyo iyo xubno iyo wax yar haday maanta isku dilayaan waa maxaa dadkeena iyo deegaamadeenna wuxuu tari weyni caway noqon lahayd laakiin maaha waxa la yaab leh madax dhaqameedka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta gobollada galbeed ee jamhuuriyadda Somaliland tashi wadar ah ay isugu yimaadaan waxay talooyin isha laga tuuray ku gaadhaan in dadkooda iyo deegaamadooda cidii ay mas'uuliyadooda dumadooda saarnad ay la xisaabtamaan xaalad kasta iyo xilli kasta xaaladaha jirana ay kula xisaabtamaan waxay xaq ugu leeyihiin ay ka doontaan ama ay u raadiyaan ama ay dadkooda u maciinaan u baahan waxtarka xilliyada adag laakiin inaga kuweenu ma tirsadaan waxa la yaab leh waxaynu dirsanaa kuwa danahooda ku foofa oo aan dadkeena iyo deegaamadeenna dan ka lahayn waxaynu duubka dhaqanka u xidhnaa oo u cimaamadnay kuwo danaha deegaamada iyo dadka kale danahooda ka shaqeeya ee aanu dadaabaxinayn danaheena waxa la yaab leh bal 20 madax dhaqameed ee meherka yar oo aadaya boorame inuu waliba gaariga V8 foostada qarxinaya uu wato waa $200 foostada shidaalka bal 20 madax dhaqameedka $200 gaarigiisa shidaal ku baxaya ku dhufo waa $4000 deegaamo badan iyo tuulooyin dhan oo gobollada bariga lagu halcanayo ay abaarta ka saar lahayd oo ay sabanka adag kaga filaan lahayd waxaan leenahay matalayaasha siyaasadda madax dhaqameedka iyo ganacsatada gobollada bari ka soo jeeda war dadkiini miciin bay u baahan yihiin waa dadkeeni miciin bay u baahan yihiin tood ku foofayaal baad noqoteen tood ku foofaya deegaamadeenna iyo dadkeennina waa dayacan yihiin intaan dee kacdoon bulshalaydu ku samaynin bal imika markii madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi la dooranayay waxay u dib jirayeen
oo ay tuulo walba iyo deegaamo aanay weligood cagta dhigin u tagayeen wadano cod bay ahayd iyo dana ay leeyihiin iyo qandaraasyo ay qaateen ceelaf weyn baa ugu yaraydoo 3 bilood baa la fadhiyey milyan dollar baa lagu burburinaya xanaanadeedana kiniin laba geyn deegaamada kalena waa saa siyaasiyiinteenu waxay iyo madax dhaqameedkeenu waxay habeen dhax ku yimaadaan maalinta ay dan siyaasi leeyihiin iyo qandaraasyo ay sitaan ee rag dhisayaan laakiin maalinta loo golmoon yahay ee ay baahidu deegaamadeenna ka jirto ee ay dadkii iyo deegaamada ay wax ku ahaayeen ay golmoon yihiin ma soo jeedaaliyaan waa xujo dul taalla waa xujo hor taalla oo ifkana lagula xisaabtamayo aakhirada ka horeysa inta ay raaca madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waxaan leenahay madaxweyne si wacan baad u shaqaynaysaa alxamdulilah dalkeennina waa la aqoonsaday laakiin dalku keligaaba noqdo waxaa la yaab leh xukuumaddii hore fayskii hore ee xalka ahaa wakhtigiisa uu inagu dheeraadeena dhaafi oo madax dadka iyo dalka u shaqaysa oo tikhnikaala dalka keen waayo kuwanaad magacawday ee xafiisyada gelinka horena wax iska soo duubaya gelinka dambena wax iska soo duubaya aarka guuxa hebel qarankiisu u shaqaynaya war qaran uma shaqaynaysid ee kilib yar oo 2 minute intaad iska soo duubtidooda hees soo saaraysa hadhowna waxaad ku sponsor garaynaysaa facebooka $50 iyo $30 iyo $100 bal bisha ku dhufo markaad gelinka horena kilib soo gelisid gelinka dambena kilib aad maantiina $100 ama $50 ku sponsor garaysid $2,000 dadkan iyo deegaankan aad leedahay waan u shaqaynayaa ee aad heesta beenta isku soo dul qabanaysid ayay wax u goyn lahayd oo abaaraha ka saari lahayd laakiin dani kuma jirto heestan isku soo dul qabanaysid iyo vlogyada aad duubaysid ummad iyo qaranna ma dhaqaan dad shaqa loo baahan yahay madaxweyne shaqa loo baahan yahay ee dadkan inamada yarar ee suurarka giigsan iyo xafiisyadiis waa qaar baa xataa xafiisyadooda ku qalabeeya dayn iyo dekano madaxweyne waxaan leenahay xilligii waa la dhaafay xukuumadda xalka ee rag xilsaamada oo xilkasa oo ummadda iyo dalka iyo dadka u shaqeeya madaxweyne noo magacow